madaxweyne kusoo dhawo barnaamijkan ugu horeyn waxaad nooga warantaa xog warbixinku naga siisaa shirkii Khaatuma ee kusoo gabagabay magaalada London ee dalka Ingiriiska. بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan salaamayaa shacabka SSC meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibadda iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ilaahayna waxaan uga baryayaa nabad iyo barwaaqo horumar iyo dawlad ay ku nagaadaan inta kadib shirkii ka dhacay London soo gabagaboobay bishii April 20-keedii wuxuu ahaa shir wada tashi oo isugu yimaadeen qurba joogta ka soo jeeda deegaanada SSC wuxuu ahaa shir lagaga tashanayay ama lagaga wada hadlayay sidii dhibaatada deegaanadaas iyo dadka ku nool haysata looga saari lahaa wuxuu ahaa shir lagaga tashanayay sidii loogu midoobi lahaa haddii la yahay qurba joogta beesha ka soo jeeda ee dibadda joogta sida ay ugu midoobi lahaayeen in wada tashigaas wixii ka soo baxaa ay ugu wada howlgeli lahaayeen shir wuxuu ahaa runtii aad u wanaagsan waxaan u mahad celinayaa raggii soo qabanqaabiyey shirka hirgeliyey iyo jaaliyadda London oo gogosha dhigtay guul weyn oo u soo hoyatay shacabka SSC ayuu ahaa shirkaasi waxa ka soo baxay go'aamo dhaxalgale ah oo wax ku ola waxa ku midoobay dhammaan qurba joogtii beeshaas dhulbahante waxa ku midoobay hoggaanka SSC iyo ururkii NSUM waxaa ka soo baxay shir lagu qabanayo waddanka gudihiisii oo lagaga wada hadlayo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka deegaanadaas muhiimaduna tahay midnimada amniga iyo horumarka shirka waxaa loo saarayaa guddi qabanqaabo oo ka soo kala jeeda caalamka oo diyaarin doonta meeshii iyo waqtigii la qaban lahaa shirka waqtigii la qaban lahaa iyo meeshii lagu qaban lahaa guddida qabanqaabada ayaa keenaysa waxaan rajaynaynaa inuu noqdo shir kii London oo kale ay ku midoobaan shacabka gudaha iyo kuwa dibadda isugu yimaadaan dhawaana la qabto wuxuu ahaa shir runtii dadka isugu yimid ay dhammaantood daacad ka ahaayeen doonayeenna in loo midoobo oo lagu midoobo danta loona midoobo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka iyo dulmiga iyo dulliga ka taagan deegaanadaas dib u dhaca iyo dhibaatooyinka ku jira sidii wax looga qaban marka shir wanaagsan oo aad u wacan ayuu ahaa midnimaana ka soo baxday waa tahay madaxweyne shirkaasi Khaatuma waxaa isugu yimi wufuud kala duwan oo ka kala socoto SSC sidoo kale Kafi iyo NSUN marka gabi ahaanba ma soo abtiray waxyaalihii ka dhaxayna maamulka SSC iyo maartay Kafi iyo sidoo kale NSUN midnimo buuxda ka soo baxday waxaa lagu midoobay hoggaanka inta shirka la qabanayo arrimihii SSC in hoggaanku sii wado waxaa lagu heshiiyey in la tayeeyo laamihii hoggaanka waxaa la magacaabay guddiyo tayeyn ah oo tayeynaya dardarna gelinaya howlihii hoggaanku waday hadday noqoto NSUM iyo hadday noqoto Kafi community iyo hadday noqoto hoggaanka SSC waa la midoobay midnimo buuxda ka soo baxday okay mudane sida ku cad heshiiskii ka soo baxay London waxaa announcement-kii meesha laga akhrinayay ku qornaa in haykalkii hoggaanka lagu wada shaqeynayo lagu heshiiyay haddana guddiyo dad lagu magacaabay baa soo baxay sabab isku waafaqayaan guddiyadan hadda la soo magacaabay iyo haykalkii hore ee hoggaankii iyo charterkii lagu hagaajiyay magaalada Nairobi sida heshiiska ku cad waxa la qaatay in hoggaanka sidii uu u jiray u socdo haykalkii hoggaankana la qaato waxa lagu heshiiyay in la tayeeyo
lana xoojiyo waxqabadkii hoggaanka. Guddiyada la magacaabay waa guddiyo tayeyn ah oo caqli iyo aqoon ku soo kordhinaya laamihii hoggaanka jiray, waana kuwa loo baahan yahay oo muhiim ah in la helo. Ragga la magacaabayna waa rag dhammaantood wax weyn ku soo kordhinaya laamaha loo magacaabay. Marka waa guddiyo tayeynaya nidaamkii jiray, maaha wax cusub oo la abuuray, maaha in la baabi'iyo hoggaankii oo wax cusub la sameeyey. waa guddiyo la shaqeynaya laamihii hoggaanka jiray. isku shaandhayntan lagu sameeyay maamulka SSC ma wada asmaceen maartay raggii hore u hayay xilkii ragga hadda qabtay. isku shaandhayn lama sameyn. haykalkii hoggaanku waa sidiisii. guddiyaa la sameeyey 4 hay-adood oo hoggaanka ka mid ahaa baa loo sameeyey guddiyo tayeeya oo dardargeliyay waxqabadkii laamahaas, maaliyadda, gudaha, difaaca iyo dibadda. 4 laamood baa in la dardargeliyo la go'aansaday. ragga ama gabdhaha guddida ka tirsan ee ku qoran warqadda waxa weeye waa dad aan dhammaantood ku kalsoonahay inay wax badan kusoo kordhin karaan habsami u socodka howlaha hoggaanka. aada iyo aada bayna muhiim ugu tahay oo uguna faraxsannahay in ay nagu soo biiraan oo ay ka qayb qaataan hawsha uu wada hoggaanka. okay mudane madaxweyne, markaa waxaad leedahay xogayihii arrimaha dibadda oo kale, xogayihii arrimaha maaliyadda iyo kii arrimaha gudaha oo kale sidoodii bay u jirayaan. guddoomiyaashan la magacaabayna waa kuwo wasaaradooda ka tirsan ama qeybta facultygaas ka tirsan oo iyaga xoojinaya, la shaqeynaya, laakiin maaha kuwo ama bedelaya ama si kale u garab ordaya. hoggaanku sidiisii wuu jiraa. haykalkii hoggaankuna waa sidiisii. guddiyada la magacaabayna waa guddiyo 4 waaxood tayeynaya nidaamkii iyo qaabkii lagu dardargelin lahaa howlaha 4 waaxood ka shaqeynaya. waa tahay madaxweyne, hadda maxay idin qorshaysan ka maamul ahaan? waxaa noo qorshaysan in aanu dardargelino howlahaas, inaanu ka faa'iidaysano talada guddiyadaas tayeynta. waxaanu sugaynaa in ay wax qabad iyo talo nagu soo kordhiyaan. waxaa noo qorshaysan in aanu howlihii uu hoggaanku waday sidii u wadno, dardarna gelino waxqabadka. waa garanay shirkan gudaha haddaynu soo noqono oo ku jiray baaqi ka soo baxay shirkii Khaatumo, aduna hadda aad ka dhawaajisay intaad wareysiga socday. ma wuxuu noqon doonaa shir lagu dhisi doono maamulkan ka duwan oo maamulka SSC ka duwan, mise wuxuu noqon doonaa maamul shir lagu habeenayo la isugu dabaridayo dadka gudaha sidii kii London oo noqday mid la isugu dumay dadkii dibadda? wuxuu noqon doonaa shir lagaga tashado sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada taalla deegaamadaas. wuxuu noqon doonaa shir ay ka soo baxdo doonista shacabka iyo rabitaanka deegaamada dadka degan. noqon maayo shir la isugu yimaado oo ay ka soo baxaan dana gaar ahaaneed. noqon maayo shir ay ka soo baxdo dano meelo kale ama wax dad kale u danaynaya. noqonayaa shir la isugu yimaado lagaga tashado danta rasmiga ah, sidii loo midoobi lahaa, sidii wax loo qabsan lahaa, sidii dhibaatooyinka jira magaranaysa aynu wada ognahay wax looga qaban lahaa, sidii wax loo wada qabsan lahaa. marka wuxuu noqonayaa shir midnimo iyo horumar lagaga tashado. waa tahay madaxweyne, hadda waxaad ku sugan tahay magaalada Nairobi oo ah meesha lagu aasaasay SSC. wax kulama ma la sameysay jaaliyadda ama guddigii jaaliyadda? maantaanu la kulanay guddidii jaaliyadda Nairobi. waa guddi runtii jaaliyadda Nairobi waa jaaliyadii saldhigga u ahayd shirkii horseed oo ahaa soo saarihii maamulka SSC. waa u mahad celinaynaa. maantaanu kulanay, wada tashi la yeelanay. marka dee iyagaanu marti u nahay, waana joognaa. kulankaasna wuu dhacay, kulamo kalena waa la yeelanaa. waa garanay mudane madaxweyne, su-aasha
kaloo ku saabsan dhawaan markaad ingiriiska joogtay shirka soo gabagooyay waraysi ayaad saylaanta BBC da qeybteeda afka Soomaaliya waraysigaaga ma waxaad ku sheegtay in London lagu doortay madaxweyne maamul goboleed SSC ah oo London lagu aasaasay mise si kala confusion baa jira arrinta ku saabsan bal noox qeex miyaydan dhegeysan waraysiga BBC da idinku ma dhegeysateen waa dhegeysan okay anigu kuma sheegin in maamul lagu ansixiyay London shirkii London ma ahayn shir loo isugu yimid in maamul lagaga hadlo wuxuu ahaa shir wada tashiya oo lagu soo casuumay maamul ahaan ansixin in lagu ansixiyo anagu ma aanan shir maamulka SSC waxa la sameeyay 2009kii waxa lagu ansixiyay buuro wadal oo 14 garaad saxeexan uma aanan London ama qurbo joogta inaan ansixin ka helo kama sheegin BBC da in ansixina lagu siiyay iyo in maamul laga dhisay dadka sheegay hadalladaas waa warxamo tashiil wixii aan idin waa korgareysan yihiin waana dhageysan kartaan dadkana waa soo bandhigi kartaan waa adoo mahadsantahay mudane adaan ku weydiiyay su'aal ku saabsan halkan waxaad joogtaa hadda waxaa halkan kula sugan xogeyaha arrimaha dibadda si mudane Maxamed Ali Jaamac oo laba habeen uu ka dameeyay socdaalkaaga xagee ku wajahantihiin qorshihiinu Nairobi arrimaha shaqo waadeen madalka wada socotaa mise meel kale arrintaas aan doonayna waxaan kulliba sugu nimid mas'uuliyiin kale oo noo imanaysa hadal ka dhigo wada tashi iyo sidii aan u wajihi lahayn hawlaha kala gedisan ee hoggaanka Nairobi-na kulliba waa meel muhiim u ah hoggaanka iyo arrimaha Soomaaliya guud ahaan kuntii gabagabadii madaxweyne hadda soo SSC maxaad u sheegay waxaan u sheegayaa shacabka SSC in ay dhamaantood u guntadaan kana wada shaqeeyaan midnimadooda waxaan dhamaanteen ognahay in sida kaliya dhibaatooyinka inaysan laga bixi karaa inay tahay midnimo jannada waxa lagu galaa loo kala beeri waa salaad jannada maxaa lagu galaa baa la yidhi nin baa la weydiiyay rasuul loo kala beeri waa kulli salaad oo tukado ku kala beeri weynay hawlaha iyo dhibaatooyinka ina haysta in furuheedu yahay midnimo waxaan kaloo shacabka u sheegayaa inay meel uga soo wada jeestaan cid kasta oo isku dayaysa inay ku sii jiraan dulmiga iyo dulligaas ilaashadaan maamulkooda iyo hoggaankooda u guntadaan sidii shirkaasi u hirgeli lahaa ilaaliyaan oo ka shaqeeyaan inaanu shirkaasi noqon mid shakhsiyaad ama nidaamyo ama beelo kale ay dan gaar ahaaneed ka fushadaan in ay ka wada shaqeeyaan in shirkaasi noqdo mid ay ka soo baxdo natiijo dhaxalgala oo ay ilmaheena u aayaan waxaan kale oo shacabka SSC ugu baaqayaa inay dulqaataan samraan waa ka baxayaan dhibaatooyinka iyo mushkiladaha haysta aad iyo aad mahadsantihiin